markii aad madaxweyne u noqoto waddan burburay oo aanay dadkiisu wakhti dheer dawladnimo xooggan arag, laxawgii iyo lahaanshihiina uu dadkii ka guuray, waxaa ku hor taalla shaqo badan. waa inaad faham badan u leedahay baahida guud ee dalkaas, waase inay jirto mudnaan. bishii Sebtembar 2012 Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wareegay talada filla Soomaaliya. intii aan magaciisa lagu xadhin boorka doorashada, Xasan waxa uu ahaa qof aad looga yaqaano koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, isagoo ku suntanaa macallin nabad-raadiye ka tirsan xarunta CRD iyo dhaqaalayahan maamulay qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka. horumarinta dhaqaalaha iyo hagaajinta hannaanka maaliyadda ayaa ka mid ahaa 6diisii tiir ee buddhigga u ahaa ballanqaadkiisii doorashada. ka hor 2012 dhaqaalaha dalka ayaa burbursanaa, waxaana aad u yaraa dakhliga gudaha. qarashka ka soo xarooda dekedda Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ayaa liitay. ma jirin canshuurta iibka, ajaanibta lama canshuuri jirin. sidoo kalena dalku ma lahayn miisaaniyad rasmi ah oo baarlamaanku ansixiyey. wax walba waxay u baahan yihiin cilmi iyo curin. hal isbuuc ayuu joogay filla Soomaaliya markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud amray in la diyaariyo miisaaniyadda 3 bilood ee ka dhimaneyd sanadka 2012. waxay ahayd $24,000. waa lacag aad u yar, laakiin in sharciga la dabaqo ayaa wax walba ka weyn. 3 bilood kadib wuxuu baarlamaanka geeyey miisaaniyaddii sanadka 2013, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee miisaaniyad geeya baarlamaanka burburkii kadib. taariikhdu qofkeeda ma qariso. wixii ka horreeyey dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, bangiga dhexe ee Soomaaliya wuxuu u jiray magac ahaan. marmar dhif ah ayay lacag ku shuban jirtay dawladdii Sheekh Shariif. wuxuu ahaa mid lookal ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu xoogga saaray in bangigu noqdo mid caalami ah. lacagta dawladda oo dhan la dhigo, lacagaha dawladda lagu soo shubo oo la aamini karo. waxaa la beddelay guddoomiyihii bangiga dhexe, hantidhawrkii iyo xisaabiyihii guud. waxaa la keenay dad wax badan ka yaqaanay shaqada, waxaana uu madaxweynuhu siiyey awood iyo madax bannaani, taasoo sahashay in maanta bangigu uu noqdo mid si hufan u shaqeeya. dekedda Xamar waa isha ugu weyn dhaqaalaha. intii aan la dooran madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa la sheegaa in lacag aad u yar laga keeni jiray oo gaaraysa $100 ilaa $150,000. ma jirin kunteenarro iman jiray dekedda, taasoo iyaduna dhaqaalaha dishay. dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa abuurtay su'aalo badan oo la xiriiray sababta dhaqaalo badan looga heli la'yahay dekedda iyo waxa sabab u ah. waxaa soo baxday in maamulka la beddelo oo shirkadda Albayrag oo iyaduna wax badan ballan qaaday lagu wareejiyo. heshiiska Albayrag ee dekedda Muqdisho waxa uu dhigayaa in lacagta dekedda laga helo 60% ay qaadato dawladda Soomaaliya, halka 40% ay leedahay shirkadda Albayrag. waxaase u raacsan inay bixiso dhammaan qarashaadka looga baahan yahay dekedda, kuwa joogtada ah sida mushaarka, dhismaha iyo wax walba oo kale oo dekedda looga baahan yahay. dawladdu waxa ay leedahay 60 nadiif ah boqolkiiba. waxaa la isticmaalay fikrado kale iyada oo ganacsatada canshuurta lagu siyaadin, sidii dhacday 2 sano ee la soo dhaafay. faa'iido badan ayaa laga dhaxlay isbeddelladii dekedda. meeshii markii hore laga heli jiray $150,000 bishii, waxay isu beddeshay $1,800,000 ilaa $2 milyan bil walba. Albayrag ayaa dib u dhis xooggan ku samaysay dekedda Muqdisho. heshiiska garoonka aadan cadde isaguna sidaa waa uu ka duwan yahay, oo markii la bixiyo qarashka joogtada ah ayay dawladda Soomaaliya iyo shirkadda Faafoori qolo walba qaybteeda qaadataa. meeshii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka bilaabay hannaanka maaliyadda iyo meeshii uu geeyey, waxaa tusaale kuugu filan in miisaaniyaddii u horraysay ahayd $24,000, halka uu 2017 baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey miisaaniyaddii sanadka oo ahayd $260 milyan. farqigu waa mid aad u badan. 4 sano ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma jirin sanad aan xisaab xir lagu samayn miisaaniyadda waddanka oo aan baarlamaanka la horgeyn. laakiin nasiib darro, 2 sano ee madaxweyne Farmaajo wax miisaaniyadaha lama xirin. dood ayaa ka dhalatay markii lagu eedeeyey maqnaashaha $42 milyan. sidoo kale 4 sano ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa websayte-ka wasaaradda ee maaliyadda bil walba lagu soo bandhigi jiray qarashka dawladda soo gala iyo midka ka baxa. bishii Maaj 2017 ayaana ugu dambaysay wax lagu daabaco. yaa hufnaanta diiday. xalana waa goob xiran oo aan la oggolayn in la ogaado waxa lagu qabto. caddaan badan iyo shirkado kala duwan ayaa deggan. lama canshuuri jirin, laakiin dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa canshuur ku soo rogtay shirkadaha halkaas deggan. waxa ay taasi kaabtay dakhliga dawladda. sidoo kale sidii loo maareeyey canshuurta iibka iyo gaadiidka oo ay dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud bilowday waxay ahayd arrin bogaadin leh.
dhismaha hannaanka maaliyadda wuxuu soo maray heerar badan 4 sano ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo ay ammaan mudan yihiin wasiiradii soo maray wasaaradda maaliyadda oo mid walba cutub fiican la yimid iyagoo raacay aragtidii daahfurnaanta maaliyadda ee madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxa uu dakhliga ka qaaday 1.2 boqolkiiba wuxuuna gaarsiiyey 4.4 boqolkiiba markii uu xilka wareejinayay laakiin 2 sano ee la soo dhaafay dakhligu waxa uu hoos u dhacay ilaa uu gaaray 2.3 boqolkiiba sanadkii 2017 halka uu 2018 ahaa 3.3 boqolkiiba dib u socosho ayaa jirta welise lagama doodin sababta dawladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay dalka dib ugu soo celisay hay'adda lacagta adduunka IMF taas oo ay la gashay heshiiskii Article 5 oo suuro geliyay in IMF ay Soomaaliya ka saxiixato heshiisyadii SMB ee deyn cafinta waxaa waqtigaas la gaaray heerkii ugu fiicnaa ee deyn cafinta waxay ku guuleysatay barnaamijka New Deal kaas oo wadada u furay inay Soomaaliya iyadu keensato mashaariic horumarineed madaxweyne Farmaajo waxa uu sii waday barnaamijka SMB iyo xiriirka hay'adda IMF iyo bangiga adduunka oo kaliya 2 sano kadib waxba lama nuuxin deyn cafintu waa 3 nooc midda koobaad waa in la joojiyo lacagaha bil walba ku kordhaya inta ay deyntu xaggaaga jirto midda labaad waa in laga cafiyaa dulsaarka kuugu taagan midda saddexaad ee ugu dambaysa waa in deynta laga wada hadlaa dawladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shaqadan bilowday waxay ku guuleysatay wejigii koobaad oo ahaa in la joojiyo lacagta sanad walba ku kordhaysay deynta ku maqan Soomaaliya dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay ku guuleysatay in adduunka Soomaaliya ku aamino dhaqaale ay maamusho burburkii kadib lacagta maamul goboleed loogu talagalay waxa la soo marin jiray dawladda isqa qabsi lacageed ma uusan dhicin taas oo muujinaysa hufnaantu halka ay gaartay dawladdii xasan sheekh maxamuud waxa ay gaartay isku filnaan maaliyadeed dhinacyada qaar meeshii 100% la caawin jiray dawladda waxay isu bedeshay 78% inay iyadu isbixiso balse 22% la caawiyo hadda waxa Soomaaliya la caawiyaa 40% haddaba maxaa sababay hoos u dhaca waxaa jirtay 4 waxyaabood oo loo yaqaan mudnaanta maaliyadda oo ah dhinacyada loo isticmaalo lacagta dawladda waana 1 mushaarka ciidanka 2 mushaarka baarlamaanka 3 mushaarka shaqaalaha rayidka ah iyo 4 running costiga wasaaraduhu ay ku shaqeeyaan intaas iyo in ka badan ayaa lagu xasuusan karaa hufnaanta maaliyadeed iyo dhaqaale abuurkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa jirta lacag deyn ah oo 50 milyan ahayd oo u badnayd mushaaraad oo ay ka tagtay dawladdii xasan sheekh maxamuud laakiin dhawaan ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay in xukuumaddu bixisay 100 milyan oo ay ka tagtay dawladdii hore markaana mid 100 milyan oo dollar lagu lahaa dawladihii naga horeeyay kuwaasoo ah mushaar la bixin waayay ama cid qandaraas la siiyay oo lacagteeda la siiyay maxamed aadan ibraahim fargeeti wasiirkii hore ee maaliyadda ayaa ka jawaabaya cadadka lacagtii ay ka tageen in deemaha ayaa waxay u kala baxaan 2 qaybood midna waxay tahay deemo oo maaragtay mushaaraad baaqday ah iyo kuwa maaragtay ganacsato ay ku leeyihiin dawladda marka mushaaraadka baaqday oo aniga ogahay dawladihii hore ay ka tageen totalkooda waa ilaa iyo 54 milyan oo dollar waxayna isugu jirtaa mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah mushaaraadka ciidamada mushaaraadka xildhibaanadii hore iyo xubnaha maartay golaha wasiiradii hore lacagahan waxa qaarkood la qaaday xilligii madaxweyne Shariif waxaana ku jira isbitaallo gaar loo leeyahay oo lagu daaweeyay ciidanka dawladda haddaba ma waxaa jirta lacag deyn ah oo ay bixisay dawladda madaxweyne Farmaajo wareeran ugu dhacay lacagi waa la bixiyay namana soo gaarin inta deemanku ay ka maqran diiwaan gelistaan xasuusanaan isu raadinay lacagta aan diiwaan gelin annaga group isku xidhan ayna 7 milyan iyo jajabay ahayd inteena qof waxbaa la siiyay waa la waayay xafiiska diiwaan gelintan tagay lacagaha la diiwaan geliyay waxa la yiri shati gooy anoo lacag haysan shatiga hadin lacag raadi wartay la isii taas aan ka goostay lacag maya tan waa laga rabaa wartii idinkan ma dhiibaysin too kala gooy ma ileedin intay keena lacagta soo raadi lacagiyaan soo raadi shatigiyan gooy hadda lacagtiyan dhiibi ilaa halkay alla ilmi aan dhala iskool iyo dugsi aan ka dhiibi waysana lacagti waa soo deensay hadda shatigiyan gooy waa dhiibi war dawlad ma diidi kara wax dawladda ma leeyahay aniga shatigiyan gooyay wixii aan habay xafiis aldhig xafiiska ilaa xafiis waxa dhiibay ma xafiis lu gooy wixii noo qoran oo noo yaalo oo barnaamijkooda oo walayna siinay oo ballanba ku daray ballan lagu daray ayay hadda waxay maraysaa waayna sii
subxaana allah sida caadiga ah haddii ay dawladdu dayn bixinayso waa in lagu soo caddeeyaa miisaaniyadda qaranka mana ku jirin wax daynbixin ah miisaaniyaddii loo gudbiye baarlamaanka taasoo sidoo kale beeninaysa sheegashada ra'iisul wasaaraha 24 bilood kadib jidadka ayaa inta badan xihan gadoodka ganacsatada kalluunka ajaaniibtu qaadatay qandaraasyada qaraabanimada lagu bixiyey iyo hantida la boobay oo bangiyo dibadda ah la dhigtay ayaa loo sababeeyaa hoos u dhaca dhaqaalaha Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ayaa loo magacaabay mid ka mid ah dalalka ugu musuqmaasuqa badan dunida taariikhdu isma qariso shacabka waxaa hor taalla in ay si dhaba uga doodaan waxa sababay dib u dhaca dhaqaale ee dalka